wafdi ballaaran oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedka Galmudug ayna qayb ka yihiin saraakiil ka socota dowladda Qatar ayaa maanta gaaray magaalada xeebta Hobyo ee gobolka Mudug iyagoo u kuurgalaya qiimeyn ay ku sameynayaan dhismaha dekedda magaaladaasi Hobyo. Dekedda Hobyo ayaa ah meel haatan horumaro ay ka socdaan waxaana dhawaan si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaheeda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli dhawaan halkaasi uu booqasho ku tagay. wariyahayaga Baashi Cali Xaasho ay nooga soo warrama magaalada Hobyo ayaa warkan inoo soo diray. wafdigan ka socday dowladda Qatar ee maanta gaaray magaalada xeebta Hobyo ayaa waxa hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug gobolada dhexe Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug socdaalka uu ku gaaray magaalada xeebta Hobyo waxa ku welinayay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya xubno ka socday maamulka Galmudug ee gobolada dhexe ganacsato iyo mas'uuliyiin kale. wafdiga ka socday dowladda Qatar iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug gobolada dhexe Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxay kormeer ku mareen dekedii hore oo u dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha Galmudug uu sheegay in hadda dowlad goboleedka Galmudug ka go'an tahay dhismaha iyo hirgelinta dekedda Hobyo. mas'uuliyiinta ka socday dowladda Qatar iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii dambe waxay kulan xasaasi ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo wasiirka dekedaha ee dowlad goboleedka Galmudug ay kula qaateen xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaalidu ku leeyahay magaalada xeebta Hobyo. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay markii shirku dhamaaday qodobadii ay ka wada hadleen. runtii maanta way yimaadeen dowladda Qatar wafdiga ka socday way arkeen meeshii wayna ku qanceen boqolkiiba bay ku qanceen. dowladda federaalka wasiirkii dekedaha khayr la siiyo waxay ayna ballan qaaday inay maadaama ay ku qanceen in ayaduna boqolkiiba ay xoog saari doonaan annagana boqolkiiba waa naga go'anta ka Galmudug ahaan marka waxaan isleeyahay waa fursado kulmay oo maanta aan uga faa'iideyn karno ummadeen sidii hadda dowladda hadda cusub ee u dhalatay si isdaba joog ayaa meeshan loo imaanayay wafdiye aad iyo aad u heer sareeyay ayaa imaanayay wafdiga maanta iyo wafdi aad iyo aad u culus way runtii dowladda Qatar baa socota waxa kale oo socda dowladda federaalka ahayd iyo ogolayaasheedii kala gadisna ah madaxweynaha Galmudug oo runtii awalna ballan qaad sameeyay xilligii uu xildoonka ahaa waqti badanna ballan qaaday inuu xoog iyo xoolo isugu geyn doono si dekedan u dhismi lahayd dadka reer Galmudug oo u heelan inay helaan deked iyo dekedan Hobyo oo runtii leh muhiimad gaar ah meesha Afrika laga soo galo oo Asia Afrika soo gasho waxaan isleenahay iyadoo muhiimadaas kulmisay dowladdiina ay maanta raalli ka tahay ama si ay horumad u tahay si dekedan u dhismi lahayd waa challenge aad iyo aad muhiim ah oo aan isleenahay. Baashi Cali Xaasho warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada xeebta Hobyo.